nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhageysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambana su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhageysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahay horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin maxaa tiiriya may erti midimiidaysay maahino war khiyaaray waxaan la yaabaan maanta soo arkay bambooyin miyaa la qabtay bambooyin warkani weligiisu yaabanaay aan isinsiin la yaabana lansiin salaan sanka jibiden warjay haddii asyaam yaa muslim cunaayo haddii la yaabo yaasinka hore loo yiri waxaan maqli jiray yaabane yaad la sugi yaabka ku hor yaalla war ninaan yaabin yaab ma yaqaan naga dhagaysta warka waxaan arkay maanta dad ubaxyo isu dhiibaya waxay yiraahdeen waa maalintii jacaylka war annaga waa noo maalintii nacaybkaan idhi war adoo jacayl heli kara maxaad nacayb ka doontay war yaa lihi alla yahay waxaan ku doortay falantaynka ay noo sheegayaan oo maalintaan ku xusayaani inuu baadari ahaa baan ogaaday waxaa kaloo jirtay dugsigii lagu khasaaray dugsi la yidhaah nin macallin aha arday wax barayey inan buu jeclaaday ardada ka mida markaasuu casharro jacayla bilaabay inuu ardadii u dhigo gabadhii tusaale ugu soo qaato ardadii oo dhan baa jeclaatay gabadhii subaxdii dambe isku laayeen dugsigii lagu khasaaraa la yidhaah jacayl waxaan ka idhi qosolkiiyo qalbiga fiican iyo qaalinimadeeda qunyar socodka laafiyaha markay qaadi midigteeda ma qatana qawliya nimay hadal quudhaay allah yow adaa ii qalmee shamsaay hayna kala qaadin war adeerayaalow beenta naga dhaafa qays leelo qarax ma dilin jacayl ba u dhinteen nimayow waa jiraa jacaylka jilbahaasna jijomiya dadkan waa janaaniyaan indhahay waryaahoy war maanta valentine day baa la yidhaahdaa ninkuu baadiriba ha ahaadee jacayl baa loo dilay arfalatiin dhaygaasaan ku xusuusnay falaa dhulkaagu fiicana faqriga looma fadhiye fala dhulkaagu fiicana faqriga looma fadhiye haye war maanta maalintii jacaylka ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu furay seminaar xanaaqa looga hortagayo marka waxaan la yaabanahay dhibaatada dalkeena taalla iyo hawsha gudoomiyaha u taalla yaan la xanaaqin ma suuragal baa naga shibdha nimaan xanaaqinu ma xoroobe war seminaarka xanaaqa subaxdaan barannaa ee ma la suulinayaa arrooda meeshaan waxaa laga rabaa dadan damiir lahayn oon diiraynin horaan waxaa loo yidhi weel bogson wax ma luu shubto waay aragna wax ma loo sheego aryaadhaha beriga waxaan dhegaysanna warkii wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle eebbaagoyaan la xanaaqa maata la leeyahay anigaaba ka xanaaqa ciil bistay wuxuu yidhi muqdishow dadaan canshuur dhiibinaa jooga beriga wixii ka dambeeyana digniinta ugu dambaysayaan sii haahe dukaanaan canshuur dhiibinu kama furnaa karo waryaa waa saxan yahay wasiirku haddaan dadku canshuurta dhiibinna qaran ma jiri karo waa runtahay horta wasiirka maaliyadda soomaaliyeed miya mase waa wasiirka maaliyadda muqdisho midda kale booranana ma leeska dhaafaa bakaarana ma lagu dangagaa mase warka cabdiqaadir oromaa rumahayo ahay kaagana kulalihi kaygana aneeska leh waryaa haddaad muwaadin tahay canshuurtu waajib bay kugu tahay ha dangagine iska bixi dhaka weynayahu waxaan maqli jiray nin tuugsaaday taab waa yaaqaan iga taagaase meeluu taal nin tuugsaaday taab waa yaaqaan iga taagaase meeluu taal war adeer bayle kumuu tuugine tunku kaaga istaagaya akhyaarey waxaan la yaabay dhakhaatiir baa ka imanaya dibaddaasoo waddan walba way ka imanayaan dad soomaaliyeed bay qalayaan siifii hadda lama weydiinnin ogow ee shahaadooyinkooda lama eegin dadkii markay qalaan ay wixii lacagaha ka urursadaan ayay ka dhaqaaqayaan maanta u dambaysa waxaan arkay nin qalan oo kelida ka daloola oo isbitaalkii lagu qalay hor taagan oo la leeyahay dhakhtarkii darraad ku qalay shalay buu anba baxay hore waxaa loo yidhi dharaan dharkaaga ahayn dhaxankaa ma celiyo haddii hore taa loo yidhi hadda waxaan leeyahay dhakhtar dhoof ku yimid ha u dhiibin naftaada inta ku dhaawaco yuusan kaa dhoofinin war aniguna hadda waxaan ku maamaahayaa dhakhtar dhuumasho ku yimid dhiiggaaga yuu jaqin war taa waxaaba ka daran nin iskale sharakadaha dawada keena Soomaaliya yay naagtii ka bukootay markaasuu naagtiisii Nairobi dawo uga dalbay markaasaa lay waradaaba dawada keenee maxaad Nairobi uga dalabtay wuxuu yidhi war naga daa waxaan ganacsi baan nuu keenaaye naagta iga dilina dawada ii soo dira buu yidhi waa dad loo tashaday iyo dad baaba'ay warnimiya war mahaytan
ani war fareesh asinhaaya madawiinagii kan koonfur galbeed lafta gareen wasiiradii walaayka dhimanaayeen dhimatiri laakiin qaylika daba weerti laga may baan magacaabay wasiirka duurjoogta iyo bey'ada lankalena may baan magacaabay wasiirka hawada ee duulista lamadii ahaayeen bisaasireen reed lamadii wasiirka oo kamid ah maaray wal koonfur galbeedku duuli ma aragnaana baawur sheerankana ka hadgudubtii waari kii kalena usana waraasku gooy mayliya duurjooga wasiir leeyinka dhiki magaalada banaaja muroogsido kora reer sarwaal gaabareedniinka jaraan languus magacaabi lango kala kuweeldoykii war wasiirka duurjoogga loo magacaabay shabaabka duur ku jiro muu ilaalsada duurjoogta wakhti hore dhamaatay waxaan maqli jiray hilib niman cunowgiisa aqooninaa la siinaa anigaa duurjoogta ilaahay i barya wasiir anima iiga dhigaanaa arreeda laftagala xilkaygii oo nin kala siiye maxaas ka wadaana dhaka weyne dhulka kula xadire war ma haysaana xalaan madaxweyne xaaf dhegaystay maxamed cali wiil la yidhaahdaa yidhi weli cadaada iyo dhuusamareeb baa kala joogtaane maxaa xala markaasuu wuxuu yidhi idaacadaha dhan baanu warkaasaan ku nacay laba nimoo la ruqseeyey daba joogaan oo leeyihiin maalin kasta waa kala qaybsantihiin marka wuxuu yidhi idaacadoo dhan anugu waa xiri lahay haddii amarkayga la qaadanayo war waa dhegaystaanu madaxweynaha hadalkiisa carasaa idahana ka muuqatay marka siminaarka ka hortagga xanaaqa guddoomiya yuri Soomaali laga soo qayb geliyo war xaaf xal wuxuu yidhi gelisoran biri aadiya beela dagaalana ku heshiisiinaya saakin Nairobi afka saaray war waa kii waa hore yidhi hal la qaraabtee malaha heshiiska beeluhu u soo qaraabaya warniyo hadda ka hor baa nin reer Mudug wuxuu yidhi hooyada ilaahay ha u naxariisto waa dumare nin kale oo ag fadhiya wuxuu yidhi war aabbaha waa dhintay ma ku dartid xagee ducada uga reebaysaa markaas ugu jawaabay aabbahay nin adag oo la maxniyooda ku ogaa nin jilicsan oo ducada garaba kuma ogeyn buu yidhi hadduu hadda jilcin war nin kale oo reer Mudug goos xanuuna doctor buu u tagay gooskii xanuunaya ma aan inta kale yisiibo yiri doctorkii ayaa wuxuu yidhi war ku xanuunaya ka siibiya ku kale oo ku caafimaad qabaane markaasuu wuxuu yidhi war keligii in raba sagan ku xumeynaya inta kale yisiib war Mudug kale ma hadu sheegay hindiya ka maqlay arrin fool xume nima maxkamad ka dacway aabihii iyo hooyadii wuxuuna ku eeday inaysan kala tashan markii ay dhalayeen haddaysan idal lahayn qoys faqriga kama dhasheen buu yidhi warkaas waa ka garheleen odagii habartii waxay yidhaahdeen aan la tashanna ma xume xaggee joogay midaas waxaa ka sii daran iyadoon lala tashanow haddana dhimaha wartaa waxaa ka sii daran ninkii yidhi ilmo jaamacow haddaad geeliinna dhaqan weydaan walle in laydin arki idinkoo masaajidka safka hore ku jira war Donald Trump wuxuu yidhi ilhaan yahuuday nacab tahay waa inay iscasishaa ilhaanna waxay tiri isaga Falastiinu nacab yahay waa inuu iscasilaa odayga dhakada weyni horaa waxaa loo yidhi ninku talaxuma ma taraambiba war ma haysaas dadka qaar ibliis tabaro toobiyaha seejo oo meel xun taagaa jiro lagu takooraaye qolyihii Trump doortay waa tala xumaayeen bay war imaam tawxiidi wuxuu yidhi haddii in la isqarxiyo jannada lagu galayo qofka adiga ku tilmaamay inaad isqarxaysaa marka hore isqarxin lahaa war kalamaana war ma haysaane xulkii qaranka ee la tariyo udbooda dhigooda wata Muqdisho imaanaya ciyaar caalamiyeena ku ciyaarayaan oo xulka Soomaaliya u baxayaan war ciyaartan sheegas dheelriigu ama isbeereeyu dhaxando kamay ceelka kamay xadirka waay war madaxweynaha Uganda imaanaya la yiraahdo saguna shalana dawlad ma tiidin buna dhaay war madaxweynaha Jubbaland ma soo dhaweysaan oo u yimaada waa Axmed Islaame intaad Uganda ka hadlaysaan awo malaaqo maginta malaay ma soo moodi kara awo malaaqo maginta malaay ma soo moodi kara ilaahay haydan arkay